وفدوهم كسعودي سفارة إنجليز كجيك هديري مجالة بيدبا ما يبي يقولون لقاء كسمة مذوينا وعن وزير كأمنية دولة قبلات كونفور قلبت وجدد وفدوهم هنديري مجالة بيدبا يهاي تسدي سولنكو هذا اللي هي أمنية كجار ديجانا ذا كونفور قلبت ساسوك على وفدو يما يبحق ورئيسي الوال إذا نتليها عيدن كحوق دالك الصومالية غيب تلح ذناد إيطاليا عيدن كبوليس كجار كونفور قلبت يوغان والكويت يا أمنية كجار ديجانا ذا كونفور قلبت أمنية جود يديك مذا بيدبا كلون كمركي هذا ما ذي ما يبور باهين تلا هذا لا أفيان كمدحتوي ذا maamulka koonfur galbeed Nuruddin Yusuf Abuukar waan gacmo usoo faahfaahin ku bii walyaaboogaha ku baahi kulanka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya soo gaaray waqti ka socda safaaradda Ingiriiska iyo sidoo kale ururka David booqasho waxay u yimaadeen magaalada Baydhabo sidii ugu hadli lahaayeen arrimaha amniga waxaana kulanka ay la kulmeen kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga gudaha dawladda koonfur galbeed mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Elay iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xooga iyo taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed kulan kadib waxa la sugu afgartay sidii hore u caawin jireen dawladda Ingiriiska haddana ay u sii caawiyaan marka safiir ku-xigeenka Ingiriiska u fadhiya dalka Soomaaliya aad bay u soo dhaweysay arimihii ay hore u caawiyeen sidii loo qabtay iyo wanaagii maanta horumarka ay ciidanka gaarka ciidanka xooga ciidanka booliska iyo ciidanka nisaba ay u sameeyeen marka aad bay ugu mahadsan yihiin ay tiri sida aad howlahaas aad u gudateen anaguna sidii idoo caawin jirnay iyo si ka wanaagsan baa idin caawinayna marka aad baa anagana ugu riyaaqnay oo sida dawladda koonfur galbeed Soomaaliya kusimaha madaxweynahana aad buu soo dhaweeyay wuxuuna ahaa jawi kulan isafgarad ah wuxuuna ku soo dhamaaday jawaad u degan ujeedada wafduhu handeeri magaalada Baydhabo ka beega maas iyadoo maalmo kor magaalada Baydhabo la gabagabay kulan iyo inay soo kooyaan saraakiil ciidamada nabad ilaalinta rooga dalka Soomaaliya iyo Soomaalida hanasa kulan journalist ka intii guud ahaan dalka Soomaaliya ku sifay dagaalyahanada al-shabaab Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo